السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركة للسودة واضح آدي هذا ومهتنتهين muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago maxaa ka jira qorshaha maamulka Trump ay ku doonayaan in lacaga bonus ah lagu siiyo oo aad u fara badan haweenka caruur badan dhala. Arrintaasi oo labadii maalmood ee u dambeysay soo baxaysay ayaan rabaa bal inaan idinla wadaago maxay yihiin waxyaabaha ay helayaan haweenka caruur fara badan dhala ama waalidiinta caruur fara badan dhala. Arrintaasi ayaan idinkula wadaagaya oo Trump iyo xubno kale ay arrintaasi ka shaqeynayaan sidii Mareykanka looga hirgelin lahaa maadaama heerka dhalmada ee Mareykanka sanadihii u dambeeyay uu hoos u sii dhacay. Labadii maalmood ee u dambeysay waxaa soo baxay in maamulka Trump ay doonayaan in la dhiirigeliyo haweenka in caruur fara badan ay dhalaan. Ma ahan Mareykanka oo kaliya, Ruushka oo kale, wadamada Yurub sida Faransiiska, Jarmalka iyo wadamo fara badan ayaa waxaa lagu dhiirigelinaya haweenka caruur fara badan inay dhalaan. Maxaa yeelay dadkii waa ay sii duqoobayaan. Hadda Ruushka oo kale dagaalka uu Ukraine la galay dad fara badan ayaa uga laaday. Putin waxa uu yiri haweenka lacag ayaanba ku siinayna 8 ilaa 10 caruur ah inay dhalaan. Faransiiska oo kale waxaan arkay lacago ayaa waalidiinta lagu siinay. Marka Mareykanku hadda tii ayay rabaan inay bilaabaan. Marka arrintan sababtu waxay tahay waxa la leeyahay heerka dhalmada Mareykanka sanadihii u dambeeyay hoos u dhac weyn ayaa laga dareemayay. Sidaas darteed ayaa maamulka Trump sida wargeyska New York Times uu soo tabiyay waxa uu ku dhiirigelinayaa waalidiinta in caruur fara badan la dhalo. Haddaba maxay tahay marka waxyaabaha ay helayaan waalidiintu haddii caruur fara badan ay dhalaan? Sidaan ognahay wadamada reer galbeedka hal ama labo ama 3 ay inta badan dhalaan. Waa ay yar yihiin qoysas haysta 5 ilaa 6 caruur ah, aad ay u yar yihiin. Hadda Utah oo kale waxaa jira community la yiraahdo Mormonka oo xilliyadii hore 4 xaas la guursan jiray, gabdhaha iyagoo da'yar la guursado. Iyagaasi waxa laga yaabaa Mormonkaasi in 6-7 qaarkood xitaa 10 ay leeyihiin, laakiin Mareykanka intiisa badan aad ay arrintaasi u yartahay. Waxa la leeyahay hadda qoysaska isku celcelisahan Mareykanku waxa ay ka kooban yihiin 3 qofood, halka 1960kii ay ka koobnaayeen ilaa iyo 4 qof. Marka noloshu markastaba horta waa ay sii qaaliyoobaysaa oo dadkan balaan ama qorshe ay ku xisaabtamaan. Waxay yiraahdaan caruurtan waxbarashadooda waxyaabahaasi ay ku sii xisaabtamaan. Laakiin hadda maamulka Trump waxa uu leeyahay marka waxaan dhiirigelinaynaa in caruur fara badan la dhalo. Marka waxyaabaha la soo jeediyo maamulka Trump uu qorsheynayo in haweenka la siiyo haddii caruur fara badan ay dhalaan waxaa ka mid ah haweeneydii canug dhashaba in lacag $5,000 ah la siiyo. Waa lacag aad u fara badan, lacag yar ma ahan. Marka $5,000 oo cash ah ayaaba la siinayaa ama jeeg ayaa loo soo dirayaa haweenku marka ay dhalaan ilmo. Sidoo kalena waxaa jirta in la maalgelinayo barnaamij haweenka lagu barayo inta badan markay caadada ka qubaystaan xilliga ay diyaarka tahay oo uur ay qaadi karaan in barnaamijyadaasi la dhiirigeliyo oo la yiraahdo lacag lagu bixiyo dowladda federaalka ay lacag ku bixiso. Sidoo kale waxaa jirta in bilad la yiraahdo National Medal of Motherhood, bilada hooyanimada ee qaranka, in la siiyo haweenka dhala 6 caruur ah ama ka badan. anaga Soomaaliyeedna waaba howlahaas caadi ay xaggeena ka yihiin 5, 6, 7 ilaa 10 ilaa iyo qoysas waxa la helayaa 20 iyo 30 ka kooban. Marka laakiin Mareykanka gudihiisa ma ahna, waxaan ka hadlayaa wadanka iyo waliba qaaradda Afrika. Sidoo kale waxaa qorshaha ka mid ah in loo kordhiyo child tax credit-ka, lacagta ay caruurtaasi ku qaadanayaan marka tax return-kooda ay xareynayaan amaba lacag kale lagu siiyo. Dhinaca kale sidoo kale Trump waxyaabaha uu isagu soo jeedinaya waxaa ka mid ah food stamp-ka la siiyo, kaarka cuntada ay ku iibsadaan in requirement lagu xiro ah inay shaqeeyaan. Dhinacaasna waxa uu ka leeyahay waa inay shaqeeyaan waalidiinta si kaarkaasi cuntada saacada adig kooban usbuucii si ay u helaan. Dhinacana waxa uu ka leeyahay marka waxaan doonayaa in la kordhiyo. Sidoo kalena waxa ay ka mid ah in 30% scholarship la siiyo in waalidiinta caruurta haysata ama lamaanaha isqaba in waxbarasho oo free ah scholarship la siiyo. Marka waxyaabahaasi oo idil ayaa waxay yihiin waxyaabaha maamulka Trump uu soo jeedinayo in la siinayo waalidiinta caruur fara badan in dhasha. Marka dadka Mareykanka ayaa la weydiiyay sababta aysan u doonaynin in caruur ay u dhalaan. Qaarkood waxay yiraahdeen 57% maba rabnaba inaan caruur dhalno. Waxaan ognahay hadda dadkan qowmuluudka isku jinsiga isku taga, 2 rag iskuursado iyo 2 dumar oo iskuursado in ay ku soo badanayaan wadanka. Sidaas darteed
laba haweenana ilmo iskama dhalayaan, laba ragana ilmo iskama dhalayaan. Trump waxyaabaha uu la dagaalamaya waxaa ka mid ah waxyaabaha noocaasi oo kale ah. Sidoo kalena marka sababaha la weydiiyo waxaa ka mid ah qaarkood marka waxay yiraahdeen 44% waxyaabo kale ayaan doonaynaa inaan diiraddeena saarno, ma rabno inaan caruur isku mashquulino. kuwa kale waxay yiraahdeen waxaanba ka cabsi qabnaaba adduunkan 38% in uu sii jiri doono in kale watan dagaalan socda nuclear iyo waxyaabo la isugu hanjabayo. sidoo kale 36% waxay yiraahdeen maba awoodnaba inaan guursano oo aan caruur dhalno, halka sidoo kalena 26% ay yiraahdeen walaac ayaan ka qabnaa environmentiga deegaanka sida uu noqon doona sanadaha soo socda, qiican hawada lagu sii deynayo, pollutionka waxyaabahaasi ayaan ba cabsi ka qabnaa. Marka ma doonayna adduunkan inaan ba caruur ku dhalnaba, mustaqbalka waxay noqonayaan ma ogin ay qaarkood ay sidoo kale leeyihiin. Trump ayaa talaadii waxa la weydiiyay bal fikirkaasi ayaa la sheegayaa in aad bonus iyo lacago iyo waxyaabo aad siinaysaan waalidiinta caruur fara badan dhalay, bal ka waran ayaa la yiri. Wuxuu yiri marka arrintaasi fikrad fiican ayay ila muuqata. xilliga ololaha doorashada isaga iyo JD Vance madaxweyne ku-xigeenkiisa waxyaabaha ay ku ololeynayeen waxaa ka mid ah waxaan doonaynaa inaan dadka Mareykanka ku dhiirigelino in caruur fara badan ay dhalaan. sidoo kale dadka u ololeynaya marka arrimahaasi Trump ayaa ka mid ah, Elon Musk ayaa ka mid ah oo Trump hadda isku dhow yihiin ninka ugu taajirsan adduunka, iyo waliba JD Vance oo madaxweyne ku-xigeenka. waxaa jirto dad rumaysan wax la yiraahdo nihilism. arrintaas waxay tahay waa siyaasad lagu qiimeynayo wax soo saarka dumarka ama nolosha bini'aadamka in kor loo qaado, waxaana ay tahay micnaheedu in wax soo saarka dhalmada kor loo qaado. JD Vance arrintaas waa uu ka dhawaajiyay, marka urur ayaaba jiraba oo dhahaya oo sharar qabsado oo doonaya in dhalmada kor loo qaado. hadda Trump oo kale waxaan ognahay isagu 5 caruur ayuu leeyahay, 3 oo kala duwan ayaa u dhashay. ninkan Elon Musk hadda labadii toddobaad ee u dambeysay waxaa soo baxdayba in hadda 14 caruur ayuu leeyahay oo ay 4 xaas ay u kala dhaleen. marka waxa uu sheegay in uu doonayo si ilbaxnimada kor loogu qaado in caruur fara badan uu dhalo. caruurtiisa hadda waxa ay ka kooban yihiin 14 waxay ka kooban yihiin 10 wiil ah iyo 4 gabdho ah. waxaana soo baxday hadda haweeney la yiraahdo Ashley Sinclair oo iyadu sheegtay in ay canug yar hadda u dhashay ninkan Elon Musk. isagu waa uu inkiraya, laakiin sawirkan ayaa la soo bandhigay markii ay dhashay New York isagoo canuga yar korka ku haya. canugaasina Romulus ayaa loo bixiyay. marka waxay leedahay kiradaas ayaa iga bixiya, canuga biilkiisa waa uu la baxaa. laakiin ninkan waxa la leeyahay hadda waxa uu doonayaa in caruur fara badan uu dhalo oo surrogacy waxyaabahan la yiraahdo oo qofka ragga inta minidiisa laga qaado dumarkana lagu talaalo canuga markay dhashana lacag la siinayo oo laga soo qaadanayo. arrintaasi wadanka Hindiya ay dadku inta badan dumarku ay lacagtaasi qaataan oo uurkaas inta lagu talaalo markay dhashana laga soo qaataa. Mareykankana waa ka jirta dadka ilmo la'aanta hayso mararka qaar in ay arrintaasi surrogacy ay sameeyaan marka aysan qofka dumarka ilmo dhalayn, laakiin ninka uu dhalayo labada qofna ay isjecel yihiin in ninka minidiisa inta la qaado haweeney kale lagu talaalo ilmahaasi markay dhashaan kadibna laga soo qaato, qofkaasina lacag la siiyo, heshiiskaasi la kala saaxiido. iyaduna sidoo kale waa ay jirtaa. waxaa jirta marka ninkan Elon Musk in uu doonayo dadka u ololeynayo yahay in caruur fara badan la dhalo. hadda 14 ayuu haystaa, laakiin waxa uu doonayaaba in caruur intaasi ka badan uu sii dhalo. madaxweyne ku-xigeenka JD Vance isagu gabar Hindiya ka soo jeeda ayuu qaba. hadda toddobaadkan Hindiya ayuu jooga ra'iisul wasaaraha wadankaasi Hindiya Narendra Modi ayuu la kulmayay oo arrimaha taarifka uu kala hadlayay canshuurahan Trump uu soo rogay. maadaama xaaskiisa isaga 3 caruur ay isku hayaan, isaguna dadka u ololeynaya uu ku jira in caruur fara badan ay dumarku ay dhalaan. waxaa la arkay xitaa Taj Mahal iyagoo isku soo sawiray xarun goobtaasi oo goob caan oo dadka Hindiya tagamaba loo dalxiis tago isagoo isku soo sawiray ayaa la arkay. marka arrintaas ayaa jirta oo maamulka Trump uu qorsheynayo in dadka Mareykanka lagu dhiirigeliyo in caruur fara badan ay dhalaan. waa xilligii ololaha doorashada. JD Vance waa sidoo kale kii murankii badnaa dhaliyay oo yiri in haweenka ilmo la'aanta ee bisadaha ama mukulaalaha korsada ma ahan in lagu daydo. arrintaasi oo haween fara badan ay aad uga caroodeen. marka haween waxaa jira iyagu yiri maba doonayna in ilmo dhalno ama ay iska haystaan ama bisada ay iska haystaan. marka arrintaasi oo muran weyn dhalisana xilligii ololaha doorashada waa kii JD Vance ka dhawaajiyay. marka arrimahaasi ayaa jira wixii ka soo kordha sida ay ku suura galayso lacagahaasi 5,000 oo haweenka ilmo dhala la siinayo, child tax credit-kooda in kor loo qaadayo, bilada la yiraahdo bilada hooyanimada ee qaranka in la siin doono haweenka dhala 6 caruur ama ka badan, sida uu maamulka Trump uu doonayo inuu ku dhaqan geliyo siyaasadaasi oo dowladda federaalka ay doonayso inay dhaqan geliso. haddii waxyaabo kale ay ka soo kordhaan waad la soo socodsiin doonaa. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo.